والد labada gabdhood ee dhashay ee isnacab ee is arki karin ee maanta dhan isjaajuusay guriga markaa timaado daddy guess what she did that waxaasay samaysay daddy punisher abe garaac laga yaabo inay la koraan dareenkaan caafimaadka qabin adigaa sababay adigaa sababay qodobkaasaan ka hadlaynaa maanta fadlan muuqaalkan si aad u hesho follow the like de walaalaha muslimiinta nala sheer gare bismillahi walxamdulilah wasallahuma calaa sayidina maxamedin wabacd waalid waxaa jira wadankan ama wadamadan qurbaha ama si guudba waxa la yidhaha sibling rivalry qur-aankuna uu tilmaamaya on ka hadli doonaa waa dareenan caafimaad qabin oo ku salaysan hinaaso heblaayaa lagaa jecel yahay hebel baa lagaa jecel yahay oo caruurta dhex gala ood adigu ku beertay adoon is ogeyn oo qalbigaagu fiican yahay ayaad ku beertay way la korayaan markay koraana way isburburinayaan mararka qaarkood markay reera yeeshaan waxaa laga yaabaa cudurka yaraanta ay ku bilaabeen caruurtooda inuu u gudbo tusaale basiidaan rabaa inaan bixiya marka aadna aan u arko taleefanka aad haysato adigoo 5 caruura 6 caruura 7 caruura 3 2 intaa dooni lahaw leh yaa mid ka mid ah iskriinka sawirkiisaad gashan marka caruurtaadoo dhan mid ka mid ah yaad sawirka iskriinkeeda gashan waxaa laga yaabaa ka u yar inuu yahay ka u weyn inuu yahay midaad jeceshahay inuu yahay laga yaabaa iskriinka midaasaa kugu jirta ama iPad-gaad gashan mar walba gabadhaadu taleefanka kaa qaatay daddy can I use the phone way arki marka wiilku wuu arki adu ma ogid laakiin ilmahan waxaad ku beertay ilmaha inaad ka jeceshahay iyaga waxay ogyihiin every friend saaxiib walbood la sheekaysato qof walbood is aragtaan in ilmahan aad ku faanayso that's why you put their picture on the screen saasaad sawirkooda u gashatay this is how they think caruurtan yaryar saasay u fikirayaan waxaa la yidhaha sibling rivalry waalidiinta soomaaliyana ay ku badan tahay kuwaan dhalay waxaa laga yaabaa facebook profileka inaad gashato taleefanka inaad gashato taleefanka aad gashatay wax weyn bay ka bedeli kartaa waxaanay keeni kartaa ilmaha aad gashatay in geeska la geliyo in maantoo dhan la colaadiyo in markaad maqan tahay la isku dayo sheekooyin in laga sameeyo waa la isku markhaati furi gurigaad ka soo gashay daddy guess what dhegtaa lagugu sheegi heblaayo she did this you can ask hebel yes daddy that's true durba geeskaa la geliyay ma ogid adigu adaana sababay qur-aanku subxaana allah wuxuu inoo sheegayaa caruur aabahood nebi ahaa yacquub awoogood nebi kale ahaa isxaaq yacquub sii dhalay ibraahim sii dhalay nebiya ku abtirsada baa waxay go'aansadeen walaalkood yuusuf inay dilaan sababta waa maxay id qaaluu layuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abina mina wanaxnu cusba maxay yidhaahdeen daddy loves yusuf and his brother aabe wuxuu inaga jecel yahay yusuf iyo walaalkii wanaxnu cusba and we are the majority we are the team yani it's not fair cadaalad ma aha isagaana laga jecel yahay annagaana ka badan aqlabiyadda waa annaga u fiirsa marka cudurkaasaa galay caruurtaa nebigaa dhalay tarbiyadda islaamku ku koriyey qur-aanku wuxuu inoo sheegay mar walba inuu odhan jiray ina allaha istafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun aabe ilaahay habdhaqan islaam la yidhaha buu idii doortay ku mintida haysta bal e markuu dhimanayay aabbaha caruurtiisu ay waxaa isku dileen waxa kaliyu kala hadlayay waxay ahayd siduu ilaahay qur-aanka ku sheegayo am kuntum shuhadaaa id xadara yacquuba almowtu id qaala libanihi maa tacbuduuna min bacdi markuu dhimanayay xitaa wuu u yeedhay maxaad caabudi doontaan haddaan dhintuu yidhi u fiirso wuu ilaalinaya mar walba haddana maxaa galay cudurka maxay yidhahdeen daddy loves him more than us maadaama ay dareenkaa qaadeen dareenkaa hebel baa lidaga jecel yahay muxuu dhaxal siiyey uqtuluu yuusufa aw idraxuuhu ardan yuusuf ka farxasha dila bal ka fikir marka caruur dareenkaa galay walaalkood raba inay dilaan walaalkoodoo yar bannaanka u soo saaray soo khiyaameeyey odaygii keenay ilmihii yaraayoo jooga ku kor murmaya ma dhagaxan weyn baan madaxa uga jabinaa madaxiisu ha burburo mise ceelkaasaan ku ridnaa dooda waa intaa hala daaye iyo naxariis ha loo gala iyo ma jirto ilmahaa yar can you imagine the psychological trauma cabsida runtii la soo gudboonaan karta yacni you were my brothers I thought you would protect me walaaladay baa ahaydeen waxaan moodayay inaad i ilaalinaysaan doodiinuna maanta waa maxay madaxa miyaanu ka burburinaa ma bashaaqnaa mise waxaan ku ridnaa ceelka waalid qur-aanka there is a reason sabab baa jirta qisooyinkan uu inoogu sheegay sababtaas waa maxay ilaahay baa ka hadlay wuxuu yidhi
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. narrate to them these stories so that they reflect and think. نبي محمد صلى الله عليه وسلم uga sheekay ummadaada qisooyinkan si ay u fikiraan. sibling rivalry u fiirso, dareen yar oo hebel baana laga jecel yahay baa wuxuu keenay tiimkaasoo dhan isu kaashadaan inay dilaan walaalkood. why? aabbaa naga jecel. haddii marka aad iskriinka ilmahan soo saarato waalid adigoo qalbigaagu fiican yahay, ilmihii yaraa weeye, waxaa laga yaabaa kuwan kale inay dhahaan maybe wuu naga yara cas yahay, wuu naga yara qurux badan yahay. that is their world. saasay carruurta u fikiraan. qodobkaasana marka waalid ka digaynaa. waxaan rabaa inaan ku dhaho waalid, sawirka ha gelinin iskriinka sawirka mid ka mid a carruurtaada. haddaad mid dhashay ma sheegin ado,